maalin ayaa waxaa dhacday 4 gabdhood oo saaxiibo ahaa una soo dalxiis tagay kayn ama forest. waxay isku soo raaceen si ay u soo sawirtaan meeshaasi quruxda badneyd. ayagoo afartooda watay kaamirada ay wax ku sawirtaan, mid ka mid ah kaamiradii ayaa dhulka uga dhacday, waxayna kaamiradu qabatay wax aad uga naxiya gabdhihii. sidoo kale waxay kaamiradu meesha ay ka soo horjeeday ama meeshii ku dhacday cid ama wax raada ama qofba ma taagnayn, laakiin markii ay kaamirada fureen waxay ku arkeen wax ka yaabiya. sidoo kale kaamirada waxay qabatay nin caata ah, wejigiisana waadax loo arkeen. kaamirada xitaa marka ay zoom soo geliyeen ama soo dhaweeyeen, gabdhihii waxay dareemeen real justice ay maqli jireen ama ruuxaanta ay maqli jireen ee maanta si live kaamirada ay wateen u qabatay. sheekadeena aan idinku soo qaadano real ghost mararka qaar CC kaamirada way qabataa, balse dadka ma ay arkaan. laakiin gabdhihii waxay la yaabeen qisadii ku dhacday. hortooda cid taagneed ma jirto, laakiin kaamirada marka ay tuureen ama dhulka ku dhacday, sawirkii ay qaadayeen waxay qabatay ninkan. afka ayay qabsadeen, way yaabeen. mid ka mid ah ayaa taleefankeeda furtay, balse waxay ku aragtay Slenderman, nin caata ah. waxaana meesha ku qornaa warbixintii markii ay si akhristeen waxay ku riyootay ama ku fikirtay inay saddexdooduba xiraan wejiga ama indhaha xirtaan si ay isaga dhigaan dad ismaaweelinaya ama meesha ku cayaaray cayaar soo doontay, si ay mar labaad u arkaan waxii ay kaamiradu qabatay. ninkan waa nin aad u cabsi badan, laakiin wejigiisa kaamirada marna maba aysan qaban. gabdhihii markii ay intii go'aansaday mid kasta waxay xirtay wejigii. marka la yeeriyo filimbiiriga ama gambaleelka, mid kasta waxay ka durkaysay tan kale. cabbaar ka bacdi markay dhaqdhaqaaq dareentana waxay furaysay marada indhaha ugu xiran, laakiin mid ka mid ah gabdhihii ayaa la ceejiyey. cabbaar ka bacdi markii uu dhacay ama saddexda gabdhood midda afarta ku ahayd markii ay yeerisay gambaleelkii kale, mid kasta waxay furtay maradii indhaha ugu xirnayd. kadib gabadhii kale ma aysan uga sheekin in la ceejiyey. asxaabteeda waa iska soo daba raacday, waa iska soo daba kacday ayadoon u sheegin inay dareentay ceejin. cabbaar ka bacdi gabar kasta teendha ayaa u dhisneyd, waxayna gashay teendhadeedii. waxay soo xasuusatay in la ceejiyey. ayadoo surkiitaa taabanaysa ayaa waxaa afkeeda ka soo baxay waxyaabo madmadow. ma u moodaa wixii madmadowaa ayadoo iska fiirinaysa oo sii cabsanaysa, ileen afkeeda ayaa waxa madow ka soo dareeray. inta usbuuxiya ayuu wuxuu noqday ninkii ay ka cabsanaysay. ninkan wejigiisana hadirtan life ayay gabadh u aragtay, balse nasiib daro maba ahaynba weji muuqanaya, sababtoo ah ninku indha iyo waxyaabaha biniaadamku lahaayeen maba uusan lahayn. waa kuwa ayagoo 3 gabdhood ay yimaaday guriga, gabadha ayadoo iska qaylinaysa oo yaaban. markii hore keenta waxay yimaadeen ayagoo 4, balse teendhooyinkooda waxay seexdeen ayagoo 3. ma waysan istirin, maysan dhihin heblaayo ayaa naga maqan. laakiin cabbaar ka bacdi waxay diirsatay taleefan. labadii kale ayay wacday, waxayna weydiisay saaxiibadood halka ay ku maqan tahay. cabbaar ka bacdina wax jawaaba ma aysan ka helin. markii ay u soo tagtay labadeedii gabdhood, asxaabteedii kale waxay isu dayeen inay raadiyaan gabadhii ka maqnayd asxaabteedii tii 4 ku ahayd. cabbaar kadib markii ay gabadhii raadiyeen, waxay waayeen meel jaani cirib ay dhigtay, laakiin waxay keeneen maskaxiyan caqligii markii hore ay ku fikerayeen. ninkani mar walba oo indhaha la xiro waa uu imaadaa amaba sanqar ayay dareemaan. waxay u sheegtay inuu markii uu yimi uu ceejiyey. waxay tiri heblaaye orod, waxaad qabataa maradii soo qaad, sababtoo ah keenta keliga aad, kadibna indhaha xir, haddii ay wax kula kulmaanna qayli. balse markii ay gabadhii indhaha xirtay, gabadhii kale afkii ayaa wixii ka yimi, balse isla markii inta urursaday ayuu ninkii noqday ninkii caatada ahaa. gabadhii waa sii qaylisay, wayna sii naxday.
tii kale oo iska sii socota ayaa soo laabatay qayladii markii ay dareentay. Markii uu yimi gabadhii, ninkii ma aysan waraysan, waxna ma uusan dhihin, balse waxa uu ahaa nin ka cabsi siinaya gabdhaha oo keliya, xitaa muusan la hadlayn. Waxay ku riyootay labadiisa gadaashiisa inay joogto labadii gabdhood. Sidoo kale gabadhii waxay wacday boolis. Tii qaylada maqlaysay boolis ayay wacday, isla markiina booliska ayay meeshii ugu yeertay. Kadib markii ay labadii gabdhood la raadiyey iyo tii kale oo la'aa, waxba lagu arkay ceel 3 gabdhood oo ku jira, ayagood moodo in lagu tuuray xaasidnimona loo dilay. Gabadhii naxdin ayay kasii qaaday. Sheekadeenan halkaas ayay noogu soo dhammaatay. Cabsi ayay habeen kastana ku noolayd.